going to fight with. And when you have Somalia, Puntland, Somaliland, all of whom have disputed borders. State building in Somalia is a failed experiment, yet Washington hasn't pivoted from over a decade of trying the same thing over and over. maxay tahay warbixinta maanta laga horjeediyay gudida arrimaha dibadda aqalka Senetka ee baarlamaanka Mareykanka maxay ka yiraahdeen xaaladaha colaadeed dhaqaale amni siyaasadeed iyo khilaafaadka hareeyay gobolka Geeska Afrika khibradan warbixinta jeedisay sidoo kale maxay tahay eedeynta culus ee dawladda Soomaaliya duldhigeen ee ku saabsan inay ku fashilantay dawlad dhiskii Soomaaliya iyo sidoo kale musuqmaasuqa hareeyay maxay tahay warbixintani khilaafka ay daboolka ka qaaday ee markaasi ku saabsan Soomaaliya iyo Somaliland oo ah laba dawladood oo kala madax banaan warbixinteenan ayaad ku bogan doontaan warbixintan galabta laga horjeediyay gudida arrimaha dibadda ee aqalka Senetka ee baarlamaanka Mareykanka oo lagaga hadlayay xaaladaha amni siyaasadeed iyo colaadaha ka taagan gobolka Geeska Afrika waxa lagu sheegay in xukuumadda ka jirta Muqdisho ay tahay mid musuqmaasuq ragaadiyay oo fashilantay isla markaana aan lahayn awood maamul oo isku filan waxa kale oo khibrada warbixintan ka horjeediyay gudida arrimaha dibadda ee aqalka Senetka ee Mareykanku ay sheegeen in lagu guuldareystay qorshihii tijaabada ah ee dawlad dhiska Soomaaliya iyadoo dawladda Mareykanka oo dhaqaale iyo dadaal badan gelisay arrintaasina aanay wax meel dhal ah ka helin welina arrimahaasina ay yihiin kuwa sii socda warbixintan daboolka waxay ka qaaday intaas ay ku dartay in aan ilaa hadda Soomaaliya ka jirin dawlad adag sidaas darteed ay tahay in Mareykanku uu dib uga fiirsado siyaasaddiisa Soomaaliya warbixintani sidoo kale waxa lagu xusay in loo baahan yahay in Mareykanku qorshe istaraatiijiyadeed oo cadow ka yeesho Soomaaliyada fashilantay ee uu ragaadiyay musuqmaasuqa iyo maamul xumadu iyo sidoo kale gobolka Geeska Afrika oo u gacan galay dalweynaha Shiinaha waxa kale oo warbixintan ay dhageysteen gudida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Mareykanka lagu soo qaatay ciidamada Mareykanka ka jooga Soomaaliya iyo saameynta ay xaaladaha ammaanka ee Soomaaliya ku yeelatay markii madaxweyne Donald Trump muddaxileedkiisii hore ciidamadiisii Mareykanka kala baxay gudaha dalkaasi Soomaaliya khibradan warbixinta jeediyay waxay tilmaameen in aanay xilligan mar kale haboonayn in Mareykanku ciidamadiisa uu kala baxo Soomaaliya si aanay bay yiraahdeen taasi fursad ugu noqon waxay ugu yeedheen cadowga Mareykanka ee Geeska Afrika warbixintan intii ay socotay gudoomiyaha gudida arrimaha dibadda ee aqalka Senetka ee Mareykanka waxa uu sheegay in aanay waqtigan Soomaaliya aanay ka dhisnayn dawlad adag oo la isku haleyn karo waxa uu sidoo kale sheegay inuu khilaafaad adagi oo dhanka xuduudaha ay u dhaxeeyaan Soomaaliya iyo Somaliland sidaas awgeedna ay tahay in markaasi laga fiirsado qorshayaasha Mareykanka ee salka ku haya dawladda Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay tahay mid markaasi aad u jilicsan waxa uu gudoomiyuhu sheegay in Soomaaliya iyo Somaliland ay si weyn isku khilaafsan yihiin arrimaha xuduudaha sidoo kalena ay khilaafaadyo kale oo siyaasadeed ay ka dhaxeeyaan waxa uu si gaar ah u xusay inay jirto su'aasha ah ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya jooga cidda ay u tababaran yihiin iyo cidda ay la dagaalamayaan maadaama oo ay Soomaaliya iyo Somaliland mid walba dhankooda dana gaar ah ay u leeyihiin waxaana gudoomiyuhu taageeray fikradda ay Mareykanku ciidamadiisa kala baxay Soomaaliya isagoo gudoomiyahan gudida arrimaha dibadda ee aqalka Senetka lagu yaqaano inuu u ololeeyo qadiyadda madax banaanida ee Jamhuuriyadda Somaliland warbixintan oo khibradu jeediyeen isla markaana ay xildhibaanada gudida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Mareykanku ay su'aalo kala duwan ay weydiiyeen sidoo kale waxa lagaga hadlay saameynta ay dalalka Geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadan ay ku leeyihiin quwadaha shisheeye ee loolanka adag kula jira Mareykanka kuwaas oo ay ka mid yihiin Shiinaha Ruushka Iran iyo dalalka kale ee Khaliijka Carabta gaar ahaan dalalka Qatar iyo Imaaraadka Carabta waxay xuseen in saameyntii Mareykanka ee Geeska Afrika ay meesha ka sii baxayso iyagoo si gaar ah u soo qaatay ciidamada shisheeye ka jooga Djibouti heshiisyada Shiinuhu la galay dalka Kenya iyo saameyntiisa joogitaan ee Soomaaliya iyo Ethiopia waxayna dawladda Mareykanka ugu baaqeen inay la yimaado qorshayaal ay dib ugu soo ceshanayso saameyntii Mareykanku ku lahaa gobolka Geeska Afrika warbixintan oo ahayd mid aad u xasaasi ah isla markaana ahayd mid aad u qoto dheer oo khibradan warbixinta u jeedisay gudida arrimaha dibadda ee aqalka Senetka ee Mareykanku ay arrimo badan oo huursan ay daboolka ka qaadeen waxay noqotay mid saacadihii u dambeeyay si weyn loo hadalhayay Abd Fataax Xasan Xuseen Xared